iyadoo oo duruufaha nololeed ee Boorama ka jira ay badan yihiin ayaa waxa jira dad iyagu la ildaran xanuuna kala duwan oo qaba hadaba xaafada Sheekh Makaahil ee gudaha magaalada Boorama ayaa waxa ku xanuunsanaya muddo 9 sano ah wiil yar oo isagu ka xanuunsanaya madaxa wiilkan yar ayaa marka muuqaalkiisa aad aragto aad ka naxayso wiilkan ayaa dushiisa waxay ka muuqataa dhibaato aad u fara badan oo xagga caafimaadkiisa alla xidhiidha iyadoo oo uu wiilkani u baahan yahay gargaar walaaltinimo iyo mid muslimnimo ayaa waxa xaafada uu degan yahay aad u liitaan noloshoodu dadweynaha degan xaafadaasi jaarka ah ayaa waxa ay sheegeen in iyagu wixii tabarucaad ah ee noloshooda ay ka gooyaan ay gurigaasi ku taraan wiilkan ayaa gurigan looga bixiyaa tabarucaad ay jaarkoogu soo ururiyeen kirada ah haddaba muuqaalka inanka ayaa waxa agtii dhagtiisa suran oo uu afkiisa ku talaalan caag rabar ah caagaasi rabarka ah ayaa waalidka uu dhalay habeenkii kolba ku soo jeeda kaasi oo laga ilaalinayo inuu jiirko cuno wiilkan ayaa muuqaalkiisa aad ka naxayso waxa uu noqday qolfoof isa saaran kaasi oo muuqaalka lugaha iyo madaxuba ay aad u liitaan oo nolosha bini'aadantinimo marka aad aragto ay indhahaagu aad u lilmayn haddaba intii aan ku sugnaa xakan ay degan yihiin ayaan waxa aan halkaasi kula kulmay hooyada dhashay hooyo ka mid ah hooyooyinka jaarka ah oo iyadu u ururisa deeqaha noloshooda ay ku kaabayaan kaasi oo ay noloshoodu ay u liidato qoyskan ayaa waxa ay ka kooban yihiin 5 qof oo caruur ah kaasi oo ay noloshoodu ay aad u adag tahay iyo korniinkoogu hase ahaatee ee xaaladda caafimaad ee uu wiilkani ku sugan yahay ayaa waxay tahay mid aad u daran oo aad looga naxayo daba waa kuwan wiilka hooyada dhashay iyo hooyada jaarka ah ee gargaarta iyaga oo xaaladda nolosha uu wiilkani ku nool yahay iyo qoyskaba ka sheekaynaya aniga oo xalimo cilmi magacaygu yahay kamida waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland iyo maxayda mas'uuliyiinta gobolka Awdalba in adoontaas ilmaha la kadeedan wax looga qabto oo wax loogu tabaro oo loogu taakuleeyo hooyo ma haysato caafimaad daryeel ma haysato meel ay dhakhtar dabadeed ku haysataan ma jirto waxayna haysataa 5 caruur oo kale oo kuwa hareeraha jooga marka waxaan ka codsanayaa oo aan leeyahay hadii aan maxay haydanay dalka Soomaaliland kuwa qaasaan gobolka Awdal in wax loo taakuleeyo oo meel ay kula hooyato ubadkaayo adoonkaas sida Ilaahay u gartay Ilaahay dartii wax loogu qabtaa magacaygu waa Raxmaan Juuri Xadi ilmaha 5 sano barsaam ugu yaala marka kaliya dhakhtar geedisaaba waxa la guri jarmo kan lagu daweyn karaa xanuunka ku dhacay maskaxda marka daawooyin ku geeyo dilmaha dhibaatada ku hayno in waxa way ku daran ba jiirka cunay talabaad mar guri kiraan gal jir markii hore xagaa qofkan isla gal wuxuu leeyahay ilmaha xanuun baa ku dhaco la qalsiinay sida ay ku soo qolkan $200 weeyaan marmar waan weynaaba mar waan la helaa marka imka dana qolada la ka baxaale dadam la tagno waana nucayada uu keeno duruufaha nolosha caadiga ah ayaa waxay wiilkan u saameeyeen inuu haba yaraate ee una la jaan qaadi karayn xanuuna maskaxda ka haysta kaasi oo dhaqaatiirta magaaladu ay ku sheegeen in lagu daweyn karayo dalka Jarmalka haddaba dadweynaha reer Boorama iyo maamul iyo cirooliye ciyaalba ayaa waxa looga fadhiyaa sidii ay wiilkan u garab istaagi lahaayeen iyadoo oo dadaal walaaltinimo iyo mid muslimnimaba uu u baahan yahay waxa dadweynaha laga codsanayaa lacageed iyo mid adduunyaba ay soo gaarsiiyaan wiilkan qoyskooga waa Axmed Diiriye Ciiltire telefishanka Rayo xaafada Sheekh Makaahil